horta in de qof xildhibaana wad garanaysan oo Norway joogo oo duruuf gaar leh oo freely ku shaqeynaya dadka inay kaysaskooda wada geeyaan horta ma ahan oo arrimo bareebada laga shaqeyn karaye laakiin si inagoo nidaamsan mar waa la hadli karaa waanan talo aan siinayo amina mararka qaar kood in la isku yimaado kaysaska laga wada hadlo formulary la sameeyo qaab loo geeyo xisbiga arrimaha qaar kood inoo muhiimka laakiin ankalta saak cidina ma sameyn karayso qofku xuquuq buu leeyahay qaanuuni buu leeyahay inuu ka faa'iideystana fiican tahay arrimo way kala culculus yihiin exactly arrimaha islaamka iyo kitaabka quraanka iyo arrimahaasi aniga waxa igu qurux badan institutional islaamic road iyo hay'adaha munaasabka ku inay ka shaqeeyaan inagu Soomaalidu aad baan emotional u nahay arrimaha inoo muhiimka ee hoose inaan focuskeyga saarno iyo inoo qurux badan دانو وامنا سنة كورونا عديوان كامبين ولي بوين وانو سميو عيدين تالي كاد بانو قد حقيلي مركا قفل بنينو ده هيل مرمر باليس كيبا هنيو هادي جوغيست قف كاسي آمنو صوماليا دا iyada lafteedu yani qayb weyn bay ka tahay in laga wada qayb qaato waan dhiiri gelinayaa iyadana waxaan rajaynayaa nasiib wanaagsan waxaan ku hambalyeeynaya sida la sheegay nationalismiga Soomaalinimada magaca haboon iyo perfect yani waxyaabo ajiiba qof identity crisis ku dhacaysa maaha waa qof isku maxaa la dhahay stolt oo aanan iska faanaynin oo isagoo magaciisii runaantii suuqeynaya hatta wadankii markaan joogo waxaan ku oran jiray magacaanta hoteelada ambassador iyo maan jeclaan jirno sax waa hotel weyn laakiin Mansorio kuwaas magacaanta magaca fiican ee qof dadka wax loo sharxi karo kuwa badanka fiican marka taana waa 10 kale oo inaga yaaladina balinan intii daano kale groupkii marka waxaan ay dhaxee makayeen ma gaadhayne laakiin kuwa naga dambeeyo magac Soomaaliga ogaada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh